booliiska magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway ayaa xabsiga u taxaabay oo dhigay 3 wiil oo dhalinyaro ah oo da'dooda lagu sheegay in ay yihiin dhammaantood 16 jiro. 16 jiradan saddexda ah ayaa lagu soo eedeeyay laguna soo oogay dacwad ah inay geysteen dhac, kufsi iyo sidoo kale handadaad iyo dhibaateyn ay u geysteen 4 gabdhood oo ka mid ah kuwa degan magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway. 16 jiradan ayaa lagu soo waramayaa habeennimadii Axadda inay 4 gabdhood kula kaceen afduub iyo sidoo kale in mid ka mid ah ay kufsadeen iyaga oo adeegsanaya hubka, taa oo keentay in ay booliiska dhacdada kufsiga ugu yeeraan kufsi aad u daran maadaama loo adeegsaday hub. waxaana intaa ku darayaan in sidoo kale mid ka mid ah dhac xooggan loo geystay halka kuwa kalena jirdil iyo dhibaateyn loo geystay. qareenka booliiska Maria Sten ayaa ku waramayso in dhacdadani ka dhacday magaalada Oslo ay u qaadanayaan kiis halis ah oo aad u culus maadaama ay isugu jirto afduub, kufsi, dhac iyo dhibaateyn loo geystay dumar. waxayna sheegtay si qoto dheer in ay u eegi doonaan una baari doonaan kiiskan culus oo ay u arkaan inuu yahay mid halis ku ah bulshada. booliiska ayaa sheegay in ay hadda u baahan yihiin talooyin iyo warbixino dheeri ah iyaga oo kiiskan baaritaan xooggan iyo dabagal adag ku hayo, iyaga oo xabsiga dhigay una taxaabay 3 wiil ee 16 jirada ah kuwa oo geystay dhibaatadan baaxadda leh. waxa ayna sheegtay qareenka u doodaysa mid ka mid ah gabdhaha oo ahaa tii kufsiga loo geystay oo lagu magacaabo Tarina Rukan in gabadha la kufsaday ay weli ku jirto marxalad argagax, walaahow iyo walbahaar badan maadaama dhib loo geystay kufsigana uu u dheer yahay iyadoo loo adeegsaday hub, xagajugleyn iyo jirdilna la isugu daray. waxaana lagu soo waramayaa baaritaanka kiiskan in uu socdo maxkamadana la saari doono dhalinyarada saddexda ah ee 16 jirada ah inta lagu guda jiro bishan May aynu ku jirno ee 2026. dhibaatooyinka iyo faldambiyeedyada dhalinyarada aadka u da'da yar ay geysanayaan ayaa ku sii kordhaya guud ahaan dalka Norway iyo dalalka Scandinavian-ka. 3 wiil ee 16 jirada ah ee geystay afduubka, kufsiga, dhaca, jirdilka iyo dhibaateynta dumarka ayaa lagu soo waramayaa in saddexdooduba ay 17 jir noqon doonaan inta lagu guda jiro sanadkan aynu ku jirno ee 2026. halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.